sawirkii uu ka sheekeeyay imika wasiirku aanu qoladii koonfurta wada galnay waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa shacbiga Soomaaliland oo dhan sida feejigan xamaasada leh dhiifoon dal jacaylka ah ee waxay qoonsaan uga jawaabaan ama warkaan dalkooda wax ka dhacay aad baan soo dhaweeyay xamaasadii iyo sida ay dacwo arinta u dareemeen si ay ugu fahmeen markiiba qaran jacaylkooda ku tusaysaa dhiirigelin bay ku siinaysaa kalsooni bay ku siinaysaa inay ummaddu dagaalka iyo qaranka wada simantahay meelka wada eegayso waxa kaloo iyana kalsoonina inay ka hadlaan hadday arkaan madaxooda waxaan fahamsanayn inay markaaba dhiifadeen war waa qaranka maxaa dhacay wax loo sheego marka xamaasadda ka kacday ee ninkaas uu sheegay aad iyo aad baan soo dhaweynayaa dawladda kalsooni badan bayna siinaysaa marka amniga halkaasaan kaga harayaa Soomaaliland waxay ka cabato waxa ugu badan madaxweynaha waa miro jooga caal anna waxaan ahay nin dhaliisha aad u ogol oo aan ka xanaaqin marka la dhaliyo waayo 40 sano mucaarad soo ah 40 sano markii soo dhaliilay mucaarad soo ah soo meel joogtay marka aqliga noqon mayso maanta illa iga boqo qof dhaliilay ama qof iga xanaaqay inuu igala maaga aniga waayo waxaan garanayaa dareenkiisa qofka mucaaradka wuxuu yahay ayaan aad u garanaya marka uu soo joogsanaya laakiin mucaaradku isna midii ku daray mucaarad baana war cabanaya taydoo la yeelmay cabasho deyn maayo tadalka danta wala yeelay taydana la yeeli maayo ta mucaaradka la yeeli maayo dalka maxaa u darin yeelayna aniga taydoo waa la iga soo dhaqaajin hadda taada waa laga soo dhaqaajin qaranka halka u dhaxay dhigayna ninkay taasi cunto weeyda isaga gardaran mucaarad maxaafisku yahay taana dastuurka sheegay wada tashiga sheegay wax wada lahaasha sheegay dhibaato weyn baan haysata waxa weeye dadka dawladnimadii aad iyo aad ayaa qalad uga fahmay مثلا waxaan heshiis ku nahay musuqmaasuq wax laga dagaalamo waxaan heshiis ku nahay sharci waxa shaqeeyo laakiin waxaan doonayaa oo dalkan naga soo baxay markii aan talaabo ismi qaado in qofna aanu ogolayn qofka isaga wax isu yihiin ee reerkooda ah in musuqmaasuq lagu qaado dhammaanna waxa lagu canaanaya madaxweynaha musuqmaasuqa jawaabta wax ka qabo hay haddaad kii shanta furada kula jiray qabatana dagaal reer baa ka cayo cirka u kacayo maxay kayga loo sheeganay waana dhacday iyadoo xaqiiqana waardinaya waxa kamid ah waxa leeyahay sharci oo shaqeeyo qofku hadduu dambi kasta galo oo la wada arkayo oo xataa dil ay tahay ayaa sheekhi ama nin shan salaad karaya nin wax dilay u arkayo ayuu doonayaa inuu dambi basuul hada meel laga sii daayo sharciga qofka soo xidhaba shalay halkan aan joogay Ismaaciil yar uu jooga nin baa walaalkii la xidhay meelaha jooga dawladdu hoos xidhay waa dhul iyo waxyar telefoon buu keenay Ismaaciil yar in hada shay war maxad leedahay soo ninka dawladdu ay qaanad hal hubsado hatta hal hubsado ee way waan Saciid Cumaadti soo xidhaysa walaalkii loo xidhaaba arwaa runtii halkan waa la xidhay wax gariye waa la xidhay sala calee hal isu marka waxaan u baahanahay labaan is qabanin ma wadi karno sharciga hal furiyo iyo anaga yaan lagu qaaday يهريان لو قاده مسق هلا قبطه يا كان قرني لا قبنه waxay u baadadka wacigoodii kor loo qaado waa burburkii waa balaadan koonfurta ka soo qaadnay waa wax sii jiitamaya